السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أردada jaamacadda Jamhuuriyadda dhigata ama ardada fasalka CA187 waxaan videogan idinka wadaagi doonaa qaabka loo soo degsanayo casharka la duubay ee naloo soo dhigo groupka markii xiisada ay dhamaato qof kamid ah groupka ardada kamid ah fasalka Cabdicasiis Daahir qofka ugu qoran tahay ayaa soo dhigay iyadoo qoraal ah marka anina waxaan ku fikirin u bedelo muuqaal ahaan si loo fahmo oo si ka duwan sidaas marka waxaa sameynaysaa linkiga lagu soo diray waa koobiyanaysaa si aad u koobiyesid waa riixaysaa marka linked koobiyad kuu soo qorto ama ay kuu soo baxdo banaanka ayaad soo bixaysaa marka browserka kugu jiro dultagaysaa ani waxaa ugu jiro Chrome saddexda dhibic ayaa taabanaysaa kadib waxaa jeega saaraysaa desktop site markaa jeega saartid markay shaashadan sidaan ay kuu noqoto macnaha waxaa qaab computer ahaan u isticmaashay taleefankaaga sidaas ayaa lagala wadaa sidaas ayaa lagala jeedaa marka waxaa halkaas search barka ah aad kili ku siinaysaa kadib meeshaas ay riixaysaa waxaa kuu soo bixaysa paste ayaad dooranaysaa ku dhufanaysaa linkiga marka waa ku koobiyeysay go ayaa leedahay keyboardka marka go dhahdid waxa ku soo baxay videoga marka video si aad ula soo degto way fududahay kaliya meeshas ay ku qoran tahay download xagga sare ee midig ayaad kili ku siinaysaa si u jeedid hadii fiir ana mar hore videogan laakiinse marka hore the first ay tahay soo dejinaysa videoga ma ku weydiinayo download iyo cancel toos ayuu ku soo degayaa marka si aad u soo degsatid hadii ku weydiiyo xitaa waxaa leedahay download kadib oo ku soconaya 122 MB waaye inuu ku socday in kale waxaad ka fiiri kartaa halkan oo u jeedaa 4 MB maraya marka qaabkan ayaa si fudud u la soo degi kartaa insha Allah dhamaan ardada inta istaqaanaba isgaarsiya insha Allah intaan aqoonni ala gaarsiyo wuu maasan yahay marka Cabdicasiis maadaama aan ka arkay asiga marka waa kana videogii macalinka casharka hadda soo dejinayay oo dhameystiran galrigayga ayuu kugu jiraa qaybta doontada boodi kartaa ina fahanteena rajayna insha Allah. Assalaamu calaykum.